السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qiimaha amaanada ay leedahay Jim iyo shirkadii maalin maalmaha ka mid ah ayuu odaygii shirkadda iska lahaa ee duqa ahaa ku fikiray inuu nasto shaqadana u dhibo mid ka mid ah ragga da'da yar ee shaqada bartay, mana rabin inuu shirkadda dhaxal siiyo mid ka mid ah wiilashiisa ama kuwa ay sii dhaleen. Wuxuu isagu yeeray raggii maamulayay waxda shirkadda oo dhan, wuxuuna dhexdhigay warkani culus: anigu waan shaqo gabay, shirkadda maamulkeedana waxaan u dhibayaa mid idinka mid ah. Waxaan idin dhibayaa imtixaan, waxaan isku soo laaban doonaa hal sano kadib. Waxaan idin keenay abuur qiimo badan oo si gaar ah u soo daray, qof walbana waxaa la siinayaa hal abuur ah. waxaana la idinka rabaa inaad aad u daryeeshaan si ay u korto. qofkii ii keena ubax ka duwan waxa ay kuwa kale ii keenaan ayaana nasiib u heli doono maamulka shirkadda. dhowr isbuuc kadib raggii waxay bilaabeen inay ka warbixiyaan abuurkii inuu kobcay, weynaaday, quruxna noqday. balse waxaa jira wiil yar oo la yidhaahdo Jim oo aan hadlin, naxdinna ka muuqatay, maxaa yeelay ubaxiisu ma kobcin dadaal kastoo ay sameeyaan isaga iyo xaaskiisii. ugu dambayn balantii baa la soo gaaray. Jimna wuxuu ku yidhi xaaskiisii, anigu shirkadda lama aaday weel maran. iyadiina waxay ku tiri, runta ha ka cabsanin, iska aad shirkadda. isna wuxuu ogaaday inay runtu tahay raaxo, laakiin wuxuu ka baqay sida xun ee loo soo fiirin doono markuu la tago weel maran. wuxuuna go'aansaday inuu la tago weelkiisa maran, wuxuuna aad ugu naxay ubaxyada la watay, dhirarkooda iyo quruxdooda intuu la egyahay. weelkiisana wuxuu dhigay meel hoos, uuna iska istaagay. saaxiibadiina way ku qoslaayeen. kadibna waxaa soo galay maamulkii shirkadda. wuxuu eegay ubaxyadii kobcay, dheeraaday, wuxuuna ammaanay dadkii dadaalay, guusha raadiyey. wuxuuna yidhi, qurux badanaa ubaxyadu. Jimna wuxuu isku qariyey saaxiibadii gadaashooda. maamulihiina wuxuu yidhi, maanta waxaa la sharfi doonaa mid idinka mid ah. wuxuuna fiiriyey weelkii eberka, wuxuuna ka codsaday xogayihii inuu u soo yeero Jim. isna wuxuu dareemay naxdin daran in la fiijin doono, maadaama uu yahay qofka keliya aan keenin ubax qurxoon. maamulihiina wuxuu weydiiyey Jim, maxaa ku dhacay abuurkaagii? wuxuuna sheegay runta, inuu isku dayay inuu koriyo, waraabiyo, balse ubaxii oo dhintay dadaal kasta uu sameeyey. saaxiibadiina way taagan yihiin, waxayna daawanayaan ceebta haysata Jim. maamulihiina wuxuu ku yidhi, fariista. wuxuuna ka codsaday inay salaamaan una sacbiyaan maamulaha cusub ee Jim. raggii kalena waxaa ku dhacay argagax iyo naxdin aad u daran. maamulihii wuxuu yidhi, sanadkii hore waxaan idin dhiibay abuur si aad u soo korisaan, balse wuxuu ahaa abuur halaabay oo aan koraynin. dhammaantiina waad beddesheen. abuurkii aan idin dhiibayna soo run ma aha. qofka keliya ee runta sheegay daacad ahaa waa Jim. wuxuu soo celiyey abuurkii aan u dhiibay sanadkii hore. saaxiibayaal, maanta muuqaalkeena halka ayuu ka egyahay. intaan ku kulmi doono tan iyo muuqaalkeena xiga. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.